Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Socdaal ayaan ku tagnay gobolka Soomaali ismaamulka Soomaalida Soomaali galbeed DDS khaasatan gobolka Shabeelle beeraheeda ayaan project yar ka fulinaynay. Project-sida aan ka fulinayno waxaa ka mid ah moos niman moos ku takhasusay ayaa aan keenay halkan sidoo kale iyo qudaarta kale oo maaragtay agronomist ah ayaa u keenay niman oo maaragtay beer halkan ka hirgeliyey. Marka intaan soconay waxyaalo badan baa ku aragnay. Waxa koowaad oo cajiibka oo la yaabnay waxaa ka mid ahaa dhul aad u fidsan weliba khaasatan gobolka magaalada Goday iyo agagaarka beeraha ku yaala tuulooyinka qabalada ku agyaalo iyo tuulooyinka ku agyaalo ayaan tagnay. Beertu 45 kilomitir ay u jirtaa 40 kilomitir bay u jirtaa maxaa la dhihi jiray Goday kolley way u siman yihiin baa filayaa xagga Goday iyo Qalaafe beertan wax ka wadnay. Dhulka intaas aan dhex soconay waxaan ku aragnay dhul aad u weyn intaas oo kumanaan hektar wallahi billahi oo cajiib ah oo aad u fidsan yacni kasoo bilaabato Goday ka shishe ilaa iyo Qalaafe dhulka saan buu u siman yahay. Geesaha buuraa kaga waxaysan laakiin dhulku dhul ala yaabiso cajiib ah weeyaan. Dhul aad u siman oo aad u dihin dhul waxaa waaye carasan ah oo xoolaha iyo beertaba ku fiican yacni waa dhulkii la beeran lahaa oo adduunka la quudin lahaa haddii bas maxaa Goday iyo agagaarkeeda beera ilaa Qalaafe la beeri lahaa si toos ah loo beeri lahaa adduunka dhan baa yaa maaragtay yaa wallahi billahi maxaa la dhihi jiray ayaa la quudin lahaa. Soomaalida halkaa degto hadday bas ah xataa dowlad deegaanka hadday iska badaa 1,000 hektar bas ay maalgelin lahaayeen wax oo ama moos ha la saaro ama wax kale ha la saaro weliba moos cajiib ah dhulkan ka baxo moos gaagaab ah cajiib ah. Marka haddii dhulkan sida wanaagsan looga faa'iideysan lahaa waxaan rajaynayaa in maaragtay deegaankaas isku filaan lahayd wallahi Etoobiyada kale xataa quudin lahayd iyo gobolada Soomaaliyeed oo maaragtay ku beegan ayaa la quudin lahaa. Waxay rabtaa waxaan kula talin lahaa dadka ismaamulka Soomaali galbeed iyo madaxdeeda in dowladda uu maaragtay ay at least wax isku daydo xat ay dhul muxuu ahaa 200-300 hektar ay maalgeliso iyada siba aniga waxay taladeeda ahaan lahayd moos bas haddii lagu maalgeliyo inay maaragtay isbedel badan dhici lahaa. Moos bas haddii lagu maalgeliyo isbedel aad u badan inuu dhici lahaa baan aaminsanahay oo 200 ama ilaa 1,000 hektar wax badan uma baahanayso oo moos ah xataa 300 waa wax ay maamuli karto. Shaqaalaheeda la geenayaa waraab fiican baa biyihii waa iska dhulka qardo ma baahno dhul maaragtay hadda aan isleeyahay ma aha dhul waa dhul geeda badan oo qarash badan galayo. Dhulkan waa dhul aad u siman wax geed ah ma lahan waxa weeyaan waa dhulkii laga faa'iideysan lahaa qarashka ugu badan oo beeraha galo hadda khaasatan dhankan Kenya aan ka imaaday waxaa weeyaan dadka qarashka waxaa dilay geedaha dhulka qardayntiisa laakiin dhulkan waa dhul siman qardayn uma baahna aad u siman yahay. Kanaaladii qaarkood dhulka qaarkood waa loo waxeeyey oo kanaalkii waaba u diyaarsan yihiin. Marka waxa weeyaan qarashka ku baxayo aad buu u yaryahay. Muhiimadda abuurkiina waaba tuuran yahay beeraha yaa laga helayaa abuur kala duwan moos gaab moos dheer ama wixii kale oo faa'iido leh laakiin aniga waxaan arkaa mooska inuu waxyaalaha number 1 yahay oo faa'iido badan leeyahay markii loo fiiriyo wadamada yacni gobolada Soomaaliyeed oo ay jaarka leeyihiin sida maaragtay maxaa la dhihi jiray Koonfur Galbeed oo webi lahayn sida maxaa la dhihi jiray Puntland oo iyadana webi lahayn sidoo kale Hargeysa Somaliland iyo maamulada kale oo deris kale ah intaas oo dhanba iyo SSC kulley ayagana deris bay leeyihiin baa filayaa kor bay kala yihiin iyo Etoobiyada kale oo ayadana laftirkeed aad mooska zaid uga bixin baa filayaa. Marka waxaasoo dhan baa looga faa'iideyn lahaa dhulkaas kolley ismaamulka haddii dadka xataa lacag laga qaado ama lacag la soo daynsado 100 hektar 200 hektar 300 hektar la geliyo waxay noqonaysaa wax
maamulkana uu ka helo maaragtay dakhli lacag ah, shaqaalaheedana maaragtay xagga kor xagga wax muxuu ahaa xagga maxaa la dhihi jiray salariga kor loogu qaado, wax badan ay ka bedeli lahayd hadee waxayna noqon lahayd wax ay dadka u horkacdo tusaale ah. waxaan taasaa ku boorinayaa maamulka DDS iyo madaxdiisa. haddaan nahay bahda Horn African Farming, walaalayaal dhul nimcaha meeshan yaallo dadkina waa ka jiifaan. marka ismaamulka waxaan dhihi lahaa dadka u horkaca tusa wax tarka uu leeyahay dhulkooda deegaankooda. waxyaalo badan baa qabatiin oo kanaalada dadka loo waxaynayo, sidoo kale waxyaalo aad u badan oo lagu farxo ayaad qabatiin. sidoo kale maxaa la jiraa cagafta oo dadka lala garab istaago. laakiin dhibka jira waxay tahay dadkan khasaarooyin badanna waa ku dhaceen oo basasha xagga basasha laftirkeed dad cilmi baarayaal in loo waxeeyo oo khaas ku ah soo bartay beeraha oo deegaanka u xil saaran qaybta beeraha. waa dadka waa lagu jiifaa saan filay aad baa lagu jiifaa. waa in dad wax baaro hadday wax dhacaan loo diri karo deegaanada oo wax soo saarka leh. cudurro badan bay dadka ka sheeganayaan iyo cayayaano badan, dadkiina ma garanayaan, daawooyinkii ma garanayaan, cudurradii ma garanayaan. marka niyad jab badan baa iska jiro. marka waxaan dhihi lahaa dadka beeraleyda hala garab istaago. 2 nin 3 nin oo khubaro ah ama Soomaali ha noqdaan ama dad kale oo ajnabi ha noqdaan in loo yeelo gobolada wax soo saarka leh aad bay u wanaagsan tahay oo laga waxaya xafiiska beeraha maaragtay beeraleyda maaragtay xagga taakuleynta cilmiga xataa dadka in la baro oo loo tababaro dad wax bartay oo dadki waxa ku yar baa u malaynaa practicalkii iyo cudurradii say u kala saari lahaayeen. daawooyin tala lehna kolley tayo lehna waa ku yar yihiin baa u malaynaa. hadday jiraan xataa dadki ma yaqaanaan. daawooyinka arkay kolley waa daawooyin dhanka Soomaaliya ka soo galo. daawooyinkaasna xagga tayada aad bay u hooseeyaan. marka ismaamulkow dadka hal garab istaago insha Allah biidnillah. dad khubaro ah loo keeno. dadkii maalkooda waa qaarkood intaasoo kumanaan oo dollar baa ka khasaartay. in lala garab galo dadkaas oo la garab istaago hal isku daya biidnillah. taas baa taladayda ah. ismaamulkana dadka ha horkaco xagga horumarka horkac ha u noqdo, tusaalaha u noqdo maaragtay. taasna waa laga maarmaan oo dowladdii ismaamulka ayaa halkan hergelisay, qorshahan bay hergelisay, intaasoo qof ay tababartay, qorshaha laga faa'iideysto. dadkiina dhalinyaradii waa iska waxaa waaye muqaadaraad baa dilay oo qaadkaas ma ahe wax kale oo la qabanaya ma laha. dhalinyaradii marka hadday wax ay ku joostaan ay helaan, wallaahi niman maalin la sheekeysanaya waxay ku leeyihiin haddii wax aan qabto ma laha, subaxii waa iska soo kacaa, dadka waxaan isku mashquuliya ma laha. wax halka wuxuu isku mashquulin karo waa inaan qaadkaan cunaa. kaas saas bay dhalinyaradii fikirkooda sidaa ah. wax kale ay qabtaan oo ay ku leeyihiin wax kale oo qaban karo ma lahan. marka insha Allah biidnillah waxaan codsanayaa in maaragtay insha Allah biidnillah dadka tusaale loo noqdo, la garab istaago, la maalgeliyo. dowladda ay laftirkeed dhulkan iska maaragtay faa'iidan intaasoo 1,000 hektar oo maaragtay laga faa'iideysanayn ay dowladda maaragtay ay at least ay maalgeliso xataa 100 hektar 200 hektar waxay noqoto. taasaa insha Allah taladanada ah. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.